imaanaysaa abti marka waxaan ku dhahay xitaa haddii dadka markii meelaha oo dadka kusoo dalxiisan imaado dadkii dhan wejidisas socod aan weligaa yeelinaba xoog yeelinay ada dhan waa isqaadqaadi xoog leeyna isku yeelay abti saamaha isla weynada ma fiicno dadka respect si dadka ku xishmeenayo dadka ku taageero dadka walaalnimo ku dadka respect qof kasta meesha ku joogo respectkiisa si waa fahamta malena haddii aad respect qof ay siineen cid ku siinaysa ma laabti fahmad assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh janaalka fiirsanayso mar qof ishiga fadlan haddii tahay booqashadaadii koowaad fadlan subscribe noo saarkan baleelkana furasiya oo noqda daawada koowaad muuqaalada aan soo gelina janaalka haddana kusoo dhawo muuqaal cusub muuqaalkaas oo aan ugu hadli doono digaal u dhexeeya xasan toob iyo ismaaciil xaaji sida ognahay maalmaha social media waxaa aqaba ka taagan xasan toob iyo ismaaciil xaaji waxayna isku haystaan maxaa la fartuun balbalaarka anaa soo caanbici iyo anaa soo caanbici horta midda koowaad markaan ka hadlo xasan toob iyo ismaaciil xaaji marka loo fiiriyo dhanka caanbixiska nin ismaaciil xaaji la dhahayo muxuu soo caanbixiyaa nin asaga la soo caanbixiyey qof macaabixina macquul gal wuxuu jooga durdur media asagoo waxay ahayn waxaa wax ka dhigay xasan toob waa wax ka dhigay ismaaciil xaaji wax aqaana ma leh wuxuu yahay wax oo galo wuxuu gudo asagoo la garanayn xasan toob ayaa durdur media keenay durdur media markuu imaaday oo ismaaciil xaaji shaashadaha adduunka soo qabtay meeshaa lagu bartay asagii caanbixi waa marka ismaaciil xaaji xasan toob marka asagio ninkii caanbixiyey hadduu oo dhahayo haddana kabaniga meeshii durdur media sii joogo qof kale oo soo saaray hadduu dhahaa kabaran anaa soo saaray annaga waa maqalnay dad aqli leh horta taas ma yeelaan caruurta yaryar ba iska daayay horta midda koowaad ismaaciil xaaji xasan toob baa ninka kusoo saaray oo adig kusoo caanbixiyey inaad ku jisaarto ma awaalkiisa waa inaad dhahdaa jazaaka allahu khayr tan xigta fartuun balbalaarka meesha kusoo caanbaxda durdur mediana dadka ninka wax soo saarana waa xasan toobna waa ninka adig kusoo saaray sidee marka ula tartami kartaa sidee aa u dhehi kartaa anaa balbalaarka soo saaray misna soo caanbixiyeen waayo ninka kusoo caanbixiyey adig iyo bashiishikii adig kusoo caanbaxday iyo meeshii joogtay iyadana kusoo caanbaxday meeshana ninkii ka talinayay oo joogay misne dadka soo saarayay ayaa joogaba sidee aad u sheegi kartaa macquul kal matana media hadda marka aa furatay matana media joogto qofaa soo caanbixisay soo saartay meeshas marbada kusoo jeedisay macquul kale inaa dhahda anaa soo saaray laakiinse adoo durdur media joogo durdur media ninkii kusoo caanbixiyey iyo meeshii laguu soo caanbixiyey iyo aabihii meesha oo joogo ma sheegi kartid qofaan soo caanbixiye ma dhehi kartid midda koowaad tan xigtaan kaala hadlahay ismaaciil xaaji adoo bili-aadan daba ku xaare waxaad guddo iyo waxaad qabadan karanayo waxaa iska dhigaysaa nin laga yaabo balaayo ka dhacday isla weyni meesha ugu dambaysay dadkaas soomaaliyeed muslimiinta inaa iskala weynaato maaha isla weynna wax xun waayo qofkana laba mid uu iskala weynaadaa qof wax aqoon uu leeyahay aqoonta uu leeyahay qofkan aqoontiisa meel sare taalo aqoonta wuxuu isleeyahay marka aqoontaan aa leedahay dadkan kale ma lehe micnaha sidaas iskula weynaadaa aqoontiisa heerka ay taagantahay iskula weynaadaa micnaha wuxuu is dhahaa dadkan kale meesha joogo aqoontaada cid gaarta male camal saasuu iskula weynaada qofna aa soo aqoon lehna waxa lehna wuxuu iskula weynaado kalaan hebelaa tahay qabiilkaa kasoo jeedatay ree hebel waayo waxaa waaye dadka taajiriinta dadka oo micnaha oo saas uu iskula weynaadaa bay kalaan ahaan marka ismaaciil xaaji waa is garanaynaa aqoontay leedahay kalaankee aad tahay sidee marka iskula weyn tahay aqoon ahaan ma iskula weyn tahay kalaan ahaan jawaabtaasna adee kaa sugeynaa tan kalena isla weynayna sideedaba ma fiicno laakiinse lisweyne labadaas mid ay noqotaa dadka isla weyn haddii aragtay labadaas mid iskula weynaadaan waa fahantaa maleyna tan xigta xasan toob marka dhahna xasan toob waa horta ilaa khayr ha siiyo waa nin soomaalida caawiya inta ugu badan dadka oo shaqo abuur u suubiya sidoo kale dad badan soo saaray dadka oo soo saarayna adaa ka mid tahay
oo maanta sheeganaysa inaad tahay youtuber diyaarsan ninka youtube-ka wuxuu yahay wax ya waxa laga hela ya iyo barnaamijkiisa dhan kaa dhaadhiciyey misna ku keenay youtube waxa la waa asay waa inaad ku mahadisa marka koowaad ilaa mahad iskale marka xigta waa inaad xasatoob ku mahadisa ma fahanta malena tan kale waxaa sheegta xasatoob dadka ma soo horfadhiisan karo codkiisa dadka ma kaafi karo macnaha codkiisa dad ma soo jeedi karo waa nin aqoon leh aqoontiisa heer sare xitaa iskuul lehin jaamacad digriye baajir lehin mister wato ninkaasna ina meel soo fadhiisto ya nin wax soo saara ninka marka wax soo saarana ina dad soo horfadhiisto ma fiican marka koowaad waxaa fiican qofkan wax soo saaraya fikraduu leeyahay fikradaas oo wax lagu soo saarayo wuu awoodaa inuu soo fadhiiso kumanaan oo qanciyo laakiinse qofku wuxuu leeyahay darajuu leeyahay ninkaas darajadiis waa fikradoo soo saara dadoo soo saara waa fahamta malena marka tan kale dadku oo soo saara ma heblaaya ani in adeer weelashiina abtiwiligeena social media ma soo keeno dhahay macnaha dadkiisa duu keensay social media misne iyo youtube-kiisa kasoo muuqdaan ma aha inuu oo macnaha ku tuugsanayo waayo kii uu leeyahay waayo cidna oo tuugsanaysa male waa shaqadiisa shaqadiisa cid oo ku caayi kartaa jirin qofkana marka inuu wax jira oo yahay oo ogaado oo inuu garan kara meesha u taagan yahay qofa hadal ku dhahay hadalkiisa waxa aad tahay aa laga soo qaada adaa marka midda kuwaad ismaaciil ahaantaada xasatoob waa ninka kusoo saaray oo adi caannimada sheegaysaba in adi wax caan ka dhigtay ninka adi kaa dhiga waa fahamta malena ninkaas inaad ku jisaarta marka koowaad waa ninkaas dadka bilaadanka shaqo way ka dhexeysaa shaqada waa laisku fahmwaan karaa waa la iskhilaafi karaa waa la kala tegi karaa waa la kala qaraabi karaa laakiinse ma aha ninkii awaalka kuu falay inaa awaalkiisa ku dhiisho soomaalihana waxay u maamaaday nin awaal galay gudaha yar awaalka qofka gala loo galay iyo nin guda waa yaryahay nin galay iyo nin loo guda wuu yaryahay allah afaanta malena tan xigta aan arkayay adiga ahaantaada maalmahan calanka kuu taagaba xasatoob oo kusoo caan bixiyaaba ku dhigni qof kale maxaa ka doonaysaa haddana waxaan kusii arkay dirislo cabdi taas xasatoob marka aan ka baxnay dirislo cabdi waxaan arkay adoo kusii dhigan haddana dirislo cabdi waxaa leedahay cunugaa yarka dirislo oo la yaqaano youtuber weyn soomaalida youtuberka ugu caansan youtuberada soomaaliya oo ku jiraa dadka toobtaanka ugu caansan oo ku jiraa halaha dhanka weliba waxaa leedahay cunugaa yar maba garanayo wuxuu yahay sidaan abti adaa lagu garanaynin dirisle adaa marka laisku fiiriyo abti adaa lagu garanaynin runta laisku sheega loo baahan yahay adaa lagu garanaynin dirisle marka la yaadi dirisle waa nin diyaarsan youtuber mar la dhahaa wejiga kusoo kale hal wejiga kusoo wejigaasoo dadku ya waxaa daawada ya ellis jaldis yangis ya womanis intaas way taageeraan duq haddii noqdo dirisle waa taageeraan cunug yar hadduu noqdo naag yar nin yar awoowo ayeeyo abti adeer waxaas dhan way wada taageeraan waa fahanta malena muuqaaladiisina waa muuqaale oo ku dhisan cilmiyad sida u hadlaani waa nin aqoon leh aqoontiisana celinayso hadalka oo ku hadlaani wuu ka fiirsadaa adi camal ma aha waa fahanta malena ninkaas waa nin aqoon leh aqoontiisana heer sare u gaartay aqoontiisana oo ka fiirsadaa cid marka oo jirto aqoontiisa oo fiirsanaa ninkaas aqoontiisa uu wax ku cabiraa qofkana markuu aqoon leeyahay waxyaabo badan aa celinayo aqoontiisa aqoon markaa leedahay waxyaabo badan aa gali lehed ay kaa celinaya aqoonta dhedhel maaha ninkaas waa nin aqoon leh aqli leh aqligiisa wax xisaaba taalanta leh garanayo waxa saxa right from wrong kala garanayo fahamta malena ma dhahleyna marka sidaa u hadlaysa tusaale camal dirisle wax isdhaafsateen misna dirisle ku dhigantahay maaha ina nin kale soo bandhigtay CK dirisle marka lahani waa laba youtuber oo Soomaaliya oo caan ah labadoodaba kala liidinin
dirisla marka CK la barbardhigay waa leedahay CK waa saas CK macnaha heeso soo qaaday CK Nairobi jooga CK si oo reaction ku bixina CK wuxuu leeyahay hab uu leeyahay oo reaction u baxsado dariiqo umar uu leeyahay dirisla cabdina marka la wadiifo leeyahay dariiqo asagana wax ku baxsado hab oo garanayo marka hadduu dirisla wax sheego sida u sheegay miyaa in CK u sheego mayo waa qalad sidaa marka abti kala fiirsan marka hadalka ku hadlayna fiirso hadalka ku hadlaysana fiirso dirislo uu garanaya sida loo hadlo hadalkiisna cidna ma celi karto waa faanta malena marka inaad isku leedaysho misna aas u dhisa misna aadada dirislo sida loo hadlo ma garanayo CK markuu hadlayo anay xitaa uu reaction bixinay aqoslay CK hadii taageerto waa si qaasi ما فهمت عملنا سيكي هدي أتاجرت سقاس لكيسي مركا أنفيرنا نبأ سيان كتاجرنا سيكي واتاجراني درسنا واتاجرا لقدنا ويلو يوتيوبرو لقدوا ده بكل اللي لكن اسمه ده سيكي يا سرايو درسلو وليتا مسني درسلا سرايا سيكي وليتا نكستنا هيركو إتاجيا يلوفركو إياه يوحو قال يوحو جودان كرنا ما فهمت عملنا مركا أبتي شرفت هايسك باجدين بستولده تمايا هاي اسك باقديني اسلوينكن اسكدا اسلوينكن اسكدا wax fiican ma اسلوينك wax fiican ma leh اسلوين ilaahay uskumaatay bilaadu bisukay afanta malayna hadii ay اسلوينك waxaan la qofka اسلوين dadka wuxuu leeyahay qof marka dabaq dheer fuul ma aragtay qofka hoosta dabaqoodis mar maxuu ku leeyahay haduu si kas weyn yahay ingiriis amal saqiir uu ku leeyahay dadka qofka salweeyna dadka saas uu isku liiriya dadka dhan ingiriis ay noqonaa asagana dadka seeliyima sidaas amal leeyahay kan ko dabaqsan biyana fuul amal ma dadka ingiriis aday waa isku maqaya marka aday dadki waa iska leeyahay dadkana aday ku siiyaan waayo nin salweeyna tahay waa fan salweeyna ma fiicna aayada quraanka lagu sheegay ilaahayna wuxuu ay salweeynimadan ilaahay bis sugnaatay waa salweeyna hadii la ilaahay sugnaatay waa fan tamalena آيات القرآن إلى حليه كوا وإسلوين دنيا الحديد آياته هنا واكن جديد محاول سكست أي نقطني سكست أي نقطة يا حق ما بأركان وايو إسلويني وإسلوين تقف إسلوين حقه هل تسار وايو آياته إلى وقته إلى إنه قفك يمرك وضد توصل وهنوك وإلهي أوفرك رسولكيسو oo qaada qofkaas oo ilaahay wadada quraanka hanuuniya xadiisada wixii la mid ah laakiin qofka duu salweyn yahay waxa la sanamiyada oo la caabudaa jiro istanaba nolol ahaan nafsi aantiis qofku dhex jiro qofka bis Soomaaliya waxa uu naqaana qofka sanam caadi qofkaani oo sanam caabudaa saan way qaraac dhana laakiin sadii maradul qalbi oo ku hay oo salweynigaas waa adoo mid sanab qalbi naftaada dhexdeeda ku nool yahay oo caabudays way isla wax xun isla waxa ka diga marka koowaad adoo walaalkii waxa ka diga isla weynimada iska dayso dadka Soomaaliyeed si fiican oo la dhaqanto qofka ku wanaajiso qofka ku xumeeya aasamaata ugu bedesho waa mid fiican ilaahay wuxuu leeyahay yarhamu man fil ardi yarhamukum fis samaa jismuha yarhamu man fil ardi yarhamukum fis samaa dulkaskeen xariis cirkan iyo xariisana hay marka kii maanta ku xumeeya hadii wanaajis kii ku sameeya asi wanaajis waa aqri adduunka liibaanaysa abti marka waxa ku dhahay xitaa hadii dadka markii meelaha oo dadka ku soo talxiisan imaado dadka dhan wajidis socod aan wiliga yeelin xoog yeelin ada dhan waa isqaad qaadi xoog leeyna isku yeelin abti sama isla weynada ma fiicna dadka respect si dadka ku xismeenayo dadka ku taageero dadka walaalnimo ku dadka respect qof kasta meesha ku joogo respectkiisa waa faanta malena hadii aad respect qof asiineen cid ku siinaysa ma laabti fahmad hebelka oo madow yahay waxaan yahay cunug madow maana si la galay ma saan yeelay waxas ma fiicna qofka cad qofka madow kan faqiirka kan taajirka ilaaha ku tirigalay waa faanta malena abti marka tan kalene soo laabo dalabka ninka misna xasatood waa aabaha
YouTube marka Allah oo ku keenay aan u baahan in uu diisa raacdo baabanta malena marka anoo muuqaalka ku sii dhimaanaynin waxaa leenahay inta Soomaali oo janalka ku xiran waan islaamaya halkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa fiidiyoga inaan ku sii dheeraado malaha cidii marka intaasna waxay ahayd waxyaabihii maalmahan social media inkastoo jaanis aan social media maalmahan isdawayhay intaas marka asxaabta inta ku xiran haddii intaan kulmina fiideo mid ka lamid ah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabadgelyo